saboolkii ku noolaa godka noqdayna hogaamiyey dunida dowladaha waaweyn ee maanta ay ka baqaan waxa uu dulmano u noqday xukuumadii shuucigeed ee ka jirtay dalkiisa qof maanta aan ka sheekayn doono waa madaxweynaha dalka China Xi Jinping waxa uu dhashay 1953 aabihiis waxa uu ahaa xubin ka tirsan kacdoonkii shuuciga ahaa ee dalka China waxa uu soo maray ilmanimadiisii nolol adag waxa ay reerkiisii u qaxeen ama u carareen baadiyaha waxay ku noolaayeen god carar ay ka cararayeen xukuumadii iyo kacdoonadii waddanka ka jiray iyo xisbiyadii waddanka ka jiray xilligan markii uu jiray da'da 13 sano maadaama xilligaas ay xilligii waddanka colaadaha ay ka jireen ma aysan jirin wax iskuul ah ee magaalada uu deganaa markaas Beijing ka furnaa cararkii ee magaalada ay ka carareen reerkii ee baadiyaha u qaxeen waxbarasho la'aan ayaa reerkii ilmahoodii soo food saartay asagana wuxuu ahaa cunugii labaad ee reerka u dhashay asaga ayaa waxa soo baray maadaama iskuul la'aan iyo waxbarasho la'aan waddankii ay ka jirtay oo iskuuladii ay xirnaayeen asaga ayaa ahaa qofkii waxa soo baray oo maxaa la yiraahdaa tooshkiisii qaatay buugtiisii qaatay asaga isxil saaray ayuu ahaa 2 sano kadib reerkii waxay ugu dareen baadiyaha oo uga soo shaqeeya beerahana reerka ugu soo falay intaasna reerka uu ku soo caawiyay asagana noloshiisii adeeg kaga soo qaaday khibrad fiican oo kaga soo helo maadaama baadiyihiina ay noloshii gobolka noloshii markii hore godka ku noolaayay waxba dhaamin aysan korontana lahayn biyana lahayn oo uu ku noolaanay aysan waxba dhaamin tooshkiisii iyo buugtiisii ayuu war u qaatay meeshiisii ayuu ka sii waday waxbarashadiisii ma uusan ka niyadin kadib waxa uu doortay inuu asiga kaligiis ugu dago sidii yaraantiisii reerkiisii uu la degnaa inuu kaligiis meel dego si waxbarashadiisii uu soo dhameysto intaas kadibna dib ayuu ugu soo laabtay magaaladiisii markuu magaaladii dib ugu soo laabtay waxa uu isku dayay inuu ku biiro xisbiga maanta uu ka tirsan yahay laakiin da'diisii oo yareed iyo khibradiisii oo yareed awgiis waa xisbigii muddo dheer iyo didmo ay siiyeen laakiin hal adeegiisii iyo go'aankiisii ka go'ana ayaa keentay inay aqbalaan oo xubin ka tirsan xisbiga ka dhigaan 1974 markii ay u doorteen xubin kadib firfircoonadiisii iyo shaqadiisii sidoo active u yahay markii arkeen waxa ay siiyeen kursiga joogtada ah ee xisbiga ka siiyeen inta markii xilli kursiga joogtada xisbiga ka siiyeen intaas ma aysan ku ekaysanin oo waxa ay ku qanceen shaqadiisii kadibna waxa uu sii magacaabeen inuu noqdo mas'uulka xisbiga u qaabilsan gobolka Shanghai gobolka Shanghai waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka China waana xarunta dhaqaale ay leedahay China ilaa maantadan sanadkii 2008 waxa uu tartamay inuu noqdo madaxweynaha asagoo ahaa xubin u sharaxan xisbigii uu ka tirsanaa waa uu ku guuleystay waxa uu noqday madaxweynihii toddobaad ee leedahay China ee loo dhaariyay ayuu noqday intaas muusan ku hakanin 2008 markii madaxweynaha loo doorto China dhaqaalaheeda heerka maanta uu yahay muusan ahayn oo dhaqaalaha waddanka kobac muusan lahayn oo uu hooseeyay aad u hooseeyay dhaqaalaha waddanka muddo 10 sano ay ku qaadatay in dhaqaalaha waddanka uu meel fiican u gaarsiiyo oo waddankii dhiso xaggii ciidan xaggii horumar xaggii dawladda haaneed xaggii dhaqaale wax walba waddankii inuu meel fiican u soo gaarsiiyo waxay ku qaadatay muddo 10 sano 10 sano kadib waxa isbeddelkii dhaqaale ee China ay sameysay waa midkii laga dareemay Afrika iyo Asia oo Afrika maanta wadamada ugu badan Afrika maanta maalgeliya xagga dhaqaalaha maanta ay adoonku yihiin waxa waddanka kuwaad u ah China maadaama China Afrika uu arborada laamiyada wadooyinka dhismooyinka xarumaha dawladda dhamaan waxa maanta China Afrika u dhiso waxa waa waddanka China la yiraahdo oo dhaqaalihii 10 sano gudaheed madaxweynahaas oo ku abuuray ilaa iyo maantadan waana 2008 xilka qabtay laakiin muddo 10 sano isbedel dhaqaale ku keenay ayaa sababtay in maanta Afrika dhaqaalihii China ay u noqoto adoon 100 sano oo hadda naga dhiman Afrika aysan awoodin dawladda Afrika aysan awoodin inay gudaan deynta China ay gelisay ee dhismooyinka wadooyinka iyo arborada loo dhisay ay gelisay Afrika ma awoodo 100 sano hadda naga dhiman inay gudo muuqaalkeena maanta waa jeclaa inaan intaas ka sii bato ama taariikh intaas ka sii dheerayna qata laakiin waqtigu nagu yar iyo jaanisku ugu yar awgeed si badan oo haysto inta yartaan ku soo koobayna soo dhawaada waxaan rajaynayaa in muuqaalkan uu idin qancin doono waxa aad jeceshiin inaad ka soo hadalnay qaybta commentiga noogu reeba waxa aad jecelahay in barnaamijka laga bedelo in lagu soo kordhiyo dhammaan fikirka waxa waaye fikirkiina meeshan waa waxa uu akoonkan ku dhisan yahay channelka YouTube-kan uu ku dhisan yahay soo dhawaada ku fikradaha qaybta commentiga noogu reeba subscribe to like share waa dinkiina